بسم الله الرحمن الرحيم maanta ay bishu tahay 18 bisha saddexaad ama Maarso 2020 waxaan ku qabanaynaa safaaradda dalka Soomaaliya ee ku taala magaalada Ankara ee dalka Turkiga shir jaraa'id oo ka kooban laba qaybood qaybta koowaad wuxuu ku saabsan yahay hawlihii safaaradda ka socday isbedel ku yimi sabab la xiriira khatarta caafimaad ee uu keenay cudurkan coronavirus qaybta labaadna waa talooyin guud oo aan siinayo dadweynaha Soomaaliyeed ku dhaqan dalka Turkiga si ay isaga ilaaliyaan ama uga taxadaraan xanuunkaas inuu soo gaaro anigoo oo dareensan khatarta caafimaad ee uu sababay caabuqa coronavirus oo si xawli ah ugu faafaya dunida waxaan halkan ugu soo gudbinayaa bulshada Soomaaliyeed ee degan dalka Turki fariimo la xiriira ka hortagga iyo yareynta faafista cudurkan qodobka koowaad qorshaha cusub ee adeegyada safaaraddu bixiso annagoo ka qayb qaadanayna xakamaynta isu gudbinta caabuqa coronavirus waxaan ku wargelinaynaa dadweynaha soo booqanaya safaaradda Soomaaliya ee Ankara in wax laga bedelay habkii aanu ugu adeegi jirnay dadka imanaya safaaradda iyada oo maanta laga bilaabo ilaa amar dambe la hirgelinayo qorshaha cusub ee hoos ku xusan number 1 waxa aad loo adkeeyay oo aan la ogolayn in laba qof ama ka badan ku kulmaan gudaha safaaradda number 2 dadka u imanaya wixii aan baasaboor ahayn waxa warqadaha lagaga qabanayaa daaqada ku taala albaabka hore ee laga soo galo safaaradda qofkii warqadihiisu u dhan yihiin waxa laga reebayaa waraaqaha iyada oo loo qabanayo ballan dambe oo uu ku qaadanayo warqadihiisa marka loo dhameeyo number 3 dadka u imanaya inay baasaboor sameystaan iyaga waxa loo qabanayaa waqti kooban oo isaga ama iyada u gaar ah oo loogu adeego waxa waqtiga siinaya sarkaalka albaabka hore jooga dadweynaha safaaradda u imanaya adeegyada number 4 dadweynaha safaaradda u imanaya adeegyada kala duwan waxa la qaabilayaa qofka shaqada loo qabanayo oo kaliya qof kale oo aan shaqo ka lahayn safaaradda sinaba looma ogolaan doono inuu yimaado safaaradda ama soo raaco qof adeeg loo qabanayo dadka caailada ah qof kaliya ayaa ku filan inuu yimaado safaaradda si uu ugu dhameeyo warqadahooda number 5 sidii horeba aan u baahinay qofkii adeeg uga baahan safaaradda waa inuu la yimaadaa baasaboorkiisa oo asal ah lagama aqbali doono koobi ama sawir lagu sito telefoonka sidoo kale adeega number 6 sidoo kale adeega qofku u imanayo hadii uu ku xiran yahay kaarka iqaamadda uu dalka ku joogo waa inuu soo qaataa kaarka oo asal ah oo aan koobi ahayn qaybta labaad ee fariinta maanta aan halka ku duubano waa fariimo guud oo muhiim ah number 1 dadweynaha Soomaaliyeed ee degan dalka Turki waxaan farayaa inay u hoggaansamaan tilmaamaha iyo fariimaha caafimaad oo ay sida joogtada ah bulshada ugu soo gudbiyaan wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkan Turkiga number 2 talooyinka tilmaamaha iyo fariimaha caafimaad waa in laga qaataa warbaahinta dawladda sida telefishinada idaacadaha jaraa'idka iyo baraha bulshada ee rasmiga ah waxaan uga digayaa dadku bulshadu inay ka warbixinta iyo tilmaamaha caafimaad ka qaataan baraha bulshada ee aan rasmiga ahayn number 3 dadka dhawaan soo galay dalkan waa inay u hoggaansamaan oo ixtiraamaan go'aanka xayiraadda 14 maalmood ah ee dawladdu sida khasabka ugu soo rogtay qof kasta oo soo galay dalka dhawaan ha ahaado ajnabi ama Turki iyada oo la faray in dadkaasi ku sugnaadaan goobta ay degan yihiin oo ay yareeyaan nooc kasta oo xiriir toos ah oo ay la yeelanayaan bulshada dadkaasi hore dalka ha u deganaadeen ama ha u yimaadeen ama ha ku soo galeen fiiso waxbarasho caafimaad ganacsi shaqo ama dalxiis xataa looma ogola in ay booqdaan goob caafimaad
inta ay ku jiraan muddada xayiraadda haddii aysan jirin khatar nafeed oo ku khasbasa. lambar 4 sidaad la socotaan waxaa la fasaxay dugsiyadii iyo jaamacadihii. sidaa darteed bulshada Soomaaliyeed ee degan Turkey waxaan ka codsanayaa inay yareeyaan dibadda baxa aan muhiimka ahayn, gaar ahaan caruurta. waa in lagu dadaalaa in guryaha lagu hayo oo aan loo ogolaan inay si nabad dibadda ugu baxaan. lambar 5 dadweynaha Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa inay joojiyaan isbooqashada, shirarka, booqashada goobaha caamka sida makhaayadaha iyo moolasha, iyo qabashada xafladaha chat kasto ay yihiin. lambar 6 waxaa la joojiyay in salaadaha lagu tukado salaada jamaacada iyo jimcaha masaajidada, taas oo ay faafisay hay'adda diyaanaad ee dalkan. waana in loo hoggaansamaa lana ixtiraamaa go'aanka dowladda. wabillahi tawfiiq.